السلام عليكم سوماليا قول سوماليا waxa ay kamid noqonaysaa tobanka wadan ee adduunka ugu hodansan ay kamid noqonaysaa waan ogahay arintan inaadan maqlin hadaad maqashana meelo yar baad ka maqashay warbaahinta Soomaalida kama aadan maqlin Soomaaliya waxa ay noqon doontaa sanadaha soo socda waa hadii sida saxda ah ee la qorsheynayo wax u dhacaan wadamada cayrta bixiya iyo maaragta wadamada loo soo tahriiba ay noqonaysaa ay kamid noqonaysaa tobanka wadan ee adduunka ugu horumarsan ay gelaysaa okay markabkii shidaalka sahminayay ayaa waxa uu soo arkay wax qayrul caadi ah shidaal iyo crude oil iyo natural gas wax aan inaba caadi ahayn ayuu soo arkay waanu baa arintan warbaahinta Soomaalida bomboonaysa ma aadan ark waa la yaabanaan arintaas aad baan la yaabanaa in warbaahinta Soomaalidu arintaas aysan bombooninayn oo aysan waxba u arkin bal hadda ila fiiri wargeyskan Turkiga laga leeyahay ee magaciisu uu yahay Turkish Century-gaas ayaa waxa uu qorayaa wax soo qaatay sawirradii iyo blogyadii iyo badii ayuu soo qaatay Soomaaliya iyo markabkii maaragtay buu soo qaatay wuxuu ku soo kor qoray marka warkan buu ku soo kor qoray uu leeyahay Soomaaliya waxa laga helay oo ay noqonaysaa kuna soo biiraysaa stage-ka wadamada leh oil natural gas iyo waxyaabahaas shidaalka ay Soomaaliya ku soo biiraysaa oo la soo saaray inay lahayd waa looga yani laakiin way ku soo biiraysaa hadii la qodo wadamada hodanka oo qasnadahooda ay buuxaan santuuqyadooda ay buuxaan ay ku soo biiraysaa waxay noqonaysaa marka meel adduunka oo dhani uu ku soo jabo oo indhaha caalamku ay arkaan oo lagu soo kala yaaco oo shirkadaha waaweyn ee bilyaneerada ay maaragtay maal gashtaan ay noqonaysaa Soomaaliya markii bariga dhexe shidaalka laga helay Sacuudiga markii shidaal laga helay adduunka oo dhan baa sida Mareykanka baa imaaday reer galbeedkii kale oo dhamma imaaday wixii oo dhan baa mid kasta fursad buu ka raadinayay in uu lug ku yeesho shidaalka wax ka maamulo ama wax ka maamulo ama uu si dabacsan oo yar ku helo badeecadaas shidaalka ah waxaas oo dhan buu rabay sidoo kale marka hadda Soomaaliya waxa ay noqonaysaa baa leeyahay wadan loo soo kala cararo hadii shidaalkaasi la soo saaro ayadoo la soo saarin hadda laftigeeda fayl baa lagu soo jiraa sababta ah wadanka saaxiibasan baatiyo ka raadsanaya marka adiga badeecadii leedahay markabkan marka baarayay 2 isbuuc ayuu badda ku jiraa oo baaritaan wada labada isbuuc wado Muqdisho iyo inta hoobiyo u dhaxaysa ayuu baaritaan ku sameeyay goobo yar marka ayaa la sheegayaa in uu baaritaan ku sameeyay blogyo loo cayimay ayuu baaritaan ku sameeyay markay arkeen Turkidii baaraysay waxa halkaas ku jira madaxay gacanta saartay waxay leeyihiin marka qoraalka markaad sii fiiriso aad akhriso waxay leeyihiin wadanka geeska Afrika ku yaala walaalaha aan nahay ee Soomaaliya waxa uu ka mid noqon doonaa tobanka wadan ee adduunka ugu hantida badan buu ka mid noqon doonaa hadda waa kaas iska fiiri laakiin mid la yaab kale ayaa waxa ay tahay arintaas saxaafada caalamku waa bulbulinaysa laakiin tani ma jirto wax bulbulina ma arkaysi TV qaranka ma la soo dhigayo raadiyowgii qaranka ma laga sheegayo idaacadii localka ahaa iyo TV-da localka ma bulbulina ma sheegayaan dadkii caanka ahaa ee baraha bulshada ku jiray ma ayadii ma aragto ma sheegayaan xagee loo wataa marka xagee loo wataa waxa taas oo dhan kaaga daran marka oo calulxumadeeda leh iyadoo la leeyahay Soomaaliya wadanka ugu hodansan oo Afrikada wadanka ugu hodansan ka waxayna kamid noqonaysaa tobanka wadan ee ugu hodansan adduunka ayay kamid noqonaysaa kaalmaha horena ka galaysaa marka lagu leeyahay madaxdeena ma u jeedaan ma oga waxa soo dhan okay hadii shidaalka la soo saaro marka sidee Soomaaliya iyo caasimadda Muqdisho u ekaanaya wuxuu ekaanaya wadamada caalamka quruxda badan ee aragtaan Mareykanka New York markaad joogto daaruhu sida u dhisan yihiin aragtay Dubai markaad joogto laamiga daaraha ganacsiga wax kasta sida ay u dhisan yihiin si la mid ah ama si ka hormarsan ay noqonaysaa marka aad haysato adiga marka aad haysato hanti badan dadku ugu soo kala yaacaya waxa jirta heestiraahda labadii walaalo ah ninkii lacag lahaa weyn labadii walaalo ah ninkii lacag lahaa weyn waxa laga wadaa yaan adiga maanta hadii aad wax haysato walaalka ka weyn oo soo waxba haysan muhiimadu adiga waa adaa lagu qiimeynaa lagu tixgelinaa wax kasta maaragta hadal aadan mudnayna lagu siinaa lagu leeyahay ka hadal waxa aadan mudnayn baa lagu casuumaya waxaas oo dhan baa lagu sheegaya adiga wax kasta lagu sameeynaya oo lagu soo jiidan karo marka waxa weeye marka aad shidaal la soo baxdo oo hantidaada aad banaanka soo dhigto oo deymihi lagu lahaa iska bixiso
واديك أد مارك عيل بحنيسو ودتك شعب كها أو ودن كاجي شقل لو سر هالسنة سعوديك يا إماراتك يا ودمدن أد أركيسان مجا إسلام كان وده الشيء إنه ولا له عن حي هل كان ولا له عن كان حي لكن الموجين كريم أقولنا إنه ولا له عن حي وايو حلقة نكور إماراتك يا سعوديك تد صوماليات با وحى سكده Soomaaliya laga qaadaa la geeyay laakiin abaalkaas nooma aysan gudin hadda waxay nooga tun weeyeen nagama dhul weyna nagama da weyna nagama taariikh weyna laakiin waxay nooga tun weeyeen oo adduunku u ixtiraamahay waxa weeyeen in lacag haystaan maalinka adiga aad lacag haysatidna lacag aad la soo baxdo waxa soo dhan afka ciid u daraysaa marka labadii walaala ah ninkii lacag laba weyn ka weyn haduu lacag leeyahay asaga si weynaanaya كان يردوا العقل ليهنا أسجى يا وينانية لكن ضد منيال وأنا وحب أجين أي ودن كي جوجا والسياسة دي هيسته وشعب كي هيسته ضد كي شعب كان ويكمل المنبع صابته هالمركز ضد كشعب كا اللي سكفه هم اللي يرادوني وضد كان شعب كا هالمركز ده سكفه إنه وأنا وحنا هرو دقاشين اللي يرادو وبيديه بقى نك صاحب دنتيس وصعد دنتيس وحرة كليه إنه كرسي سوي جوه وحسنا وحنا رجادية أردول كنا رجال ذاتك الصوماليات مالها يكون بابين وحكم ده ليبيا مجفها سي ومريين أو عقابي أو دباتين ومالها يكون جايين كميتها لكن واحد أوغان دونتان ذات كلي وأجانب وضمك لك كإمادة أو صومالي وسو تهريبية أو مال ده مجفها لوجا سميستان أركي دونتان إيه قرا وضمك لك تصالح قلبت كأفريقيا كا وضمك سوسودا ayaa qola Ethiopiana ila Ethiopia la soo maray hadii la rabo moogta halkaasi isbaara dhiganayeen magafiyal intaasna xagee loo socdaa Yurub iyo America ma aha Soomaaliya loo soo socdaa loo soo kala ordaya shaqo loo soo raadsanay loo soo tahriibaya ceedna loo soo doonay aad bad ma santihiin waan jeedinaa dhawaanaha hadii Allah idmo inaan aragno wassalaamu calaykum dadka ku dhaqan Nairobi waxa loogu bishaareynaya in Samakaal Hospital uu ka furay Medical Center Nairobi xaafada Backland Diamond Plaza 2 waxaad helaysaa timan beeris casriya dandiste iyo sidoo kale doctorka maqaarka fadlan wixii faahfaahin kala xiriir nambaradan hoose dadka ku dhaqan Nairobi waxa loogu bishaareynaya in Samakaal Hospital uu ka furay Medical Center Nairobi xaafada Backland Diamond Plaza 2 waxaad helaysaa timan beeris casriya dandiste iyo sidoo kale doctorka maqaarka fadlan wixii faahfaahin kala xiriir nambaradan hoose dadka ku dhaqan Nairobi waxa loogu bishaareynaya in Samakaal Hospital uu ka furay Medical Center Nairobi xaafada Backland Diamond Plaza 2 waxaad helaysaa timan beeris casriya dandiste iyo sidoo kale doctorka maqaarka fadlan wixii faahfaahin kala xiriir nambaradan hoose dadka ku dhaqan Nairobi waxa loogu bishaareynaya in Samakaal Hospital uu ka furay Medical Center Nairobi xaafada Backland Diamond Plaza 2 waxaad helaysaa timan beeris casriya dandiste iyo sidoo kale doctorka maqaarka fadlan wixii faahfaahin kala xiriir nambaradan hoose